وبلاوننا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبعد سود وهذا دمان كسو قيب قلياشة عاوة برنامج كان عصب aan soo bandhigi doono barnaamijkan aan caawa soo bandhigayno waxaa magaciisa la yiraahdaa company magaciisa la yiraahdo Jane Mine oo aad u isticmaali doontid qaab casri ah oo loo mine gareyn doono amaba loo qodan doono lacagta cryptocurrency-ga ugu qaalisan ee magaceeda la yiraahdo Bitcoin marka insha Allah taala presentation-ka ayaan hore u sii gelayaa Jane Mine Limited waa company-gaasi waa company la asaasay sanadkan aan ku jirno 2021 bishii October 19 ayuu wuxuu ka qaatay sharciga laysanka wadanka United Kingdom insha Allah sharciyadiisa iyo shahaadooyinkiisaba waa idin la qaybsan doonaa marka company-ga wuxuu sameynayaa inaad si xornimo ah aad u qodato ama u mine gareyso Bitcoin-ka waxaa runtii aad u fahmi kara programkan dadka already cryptocurrency-ga iyo say u shaqeyso iyo blockchain-ka iyo sida mataqaanaa Bitcoin-ta loo mine gareeyo dadka fahmi kara ba aad iyo aad u sii fahmi kara marka wuxuu sameyn doonaa wax la yiraahdo Bitcoin cloud mining wax la yiraahdo qaab electronic ayaa waxaa loo mine gareyn doonaa Bitcoin-ta waana hab easy ah oo aad ku iibsan karto Bitcoin wuxuu ku siin doonaa awood buu ku siin doonaa online ah oo aad ku mine gareyn doonto Bitcoin-ta adoo aan isticmaalaynin qalab expensive hardware adoo isticmaalaynin qofka maanta raba inuu Bitcoin mining ku sameeyo wuxuu u baahan yahay machine aad u xoog weyn wuxuu u baahan yahay koronto aad u badan wuxuuna u baahan yahay xisaabaad iyo aqoon aad u tiro badan marka kharash badan baa wuxuu kaga baxayaa qofkii raba inuu Bitcoin mining uu sameeyo marka programkani runtii waa program casri ah oo inoo fududeyn doona in aynu inagoo isticmaalayna Bitcoin cloud mining inaynu la soo baxno ama aan qodano Bitcoin intaas haddaad ila fahanteen insha Allah taala one screen-ka igu soo qora thank you masha Allah programkan inta aan ka aragnay runtii aad buu qurux badan yahay waana idin la qaybsan doonaa insha Allah second slide kan u gudbi doonaa marka qofka rabaa inuu marka uu bilaabo waa very easy to start si fudud baad u bilaabi kartaa wax oo lagaaga baahan yahay oo caqabado ah oo kugu adkeynayana ma jiraan mar allaale iyo marka aad registration-ka sameyso oo registration-kaagu uu ku dhamaado waxay ku siinayaan bonus ama soo dhaweyn free ah baa lagu siin doonaa horay baa waxaa kaaga bilaabanaya isla markiiba in machine-ka aad registration-ka markaa samaysayba inuu Bitcoin mining-kii uu ku bilaabo shaqadaasi waxay soconaysaa habeen iyo maalin iyo waqti walba 24 hour wax interruption iyadoo aysan gelinin programka kan marka bonuska ah oo ay ku siinayaan waa wax limited ah oo ay ugu talagaleen xilliga qabobaha ee wadamada Yurub hadda ay ku jiraan oo ah bisha tan December ilaa iyo bisha February marka waxay ku siin doonaan in yar oo aad ku bilowdo bay ku siin doonaan dashboard-kan aad arkaysaan qaabkan uu soo baxaya waa account kamid ah account-mada tijaabada xalay aan furnay oo aanu registration-ka u sameynay marka qaybtii free bonus-ka ahayd in siiyeen sentiyo ayaa arkaysaan ayuu already mining ku sameeyay mid kalena insha Allah taala haday u suurta gasho engineer-ka inuu khadka soo galana account aan ku shubnay lacag ku shubnay oo mining ka sameeyana ilaa iyo 24 saac ee la soo dhaafay wixii uu sameeyay isagana waa idin tusi doonaa insha Allah taala programka marka ilaa iyo bil hadii sidiisa la isaga daayo bishii wuxuu soo saari karaa 11.3 waxa dhici karta in dhalinyaro badan oo aanan haysan maalgelin oo mararka qaybtood dhahaya ma haysto wax aan isku maalgeliyo ama lacag ma haysto ama kharash ma haysto halkan waxaad arkaysaa adigoo aanan waxba gelinin inuu ay ku siinayaan free bonus-ka hadda socda inuu bishii ku soo saarayo $11 marka insha Allah taala inta ay in ka badanna programkan waa laga heli karaa qofku marka uu u baahdo marka inuu wax ku kordhisto marka account-kiisa sameystana wuxuu isticmaali doonaa upgrade steps-ka
waxaan u dayn doonaa qaybta dambe ee engineerka haddii la haydo anigu waxaan bixin doonaa warbixinta guud okay company-gan sida aan idiin sheegnay wuxuu haystaa registrationkiisa insha allahu tacaala waxaan soo dhigi doonaa qaybta chatkan idiin soo dhigi doonaa si uu qof walbaaba uu u koobisan karo sorry qaybta chatka insha allah markaan prestationka dhameeyaan soo dhigi doonaa laakiin wuxuu ka haystaa companies house ee wadanka UK ayuu registered ka yahay waxaana laga register gareeyay 19 bisha October 2021 waxyaabaha uu sii dheer yahay waxaa kamid ah haddaad sii geshid waxaad arki doontaa company-ga kan cidda iskale iyo magaceeda iyo meesha lagala xiriirayo iyo waxoo dhan baa ku qoran waxaa ku qoran nin la yiraahdo magaciisa Billy Nelson ninkaas oo 77 dhashay active inuu yahay addresskii baa ku qoran company-ga inuu director isagu ka yahay 19kiina loo doortay xilkaasi markay sharciga qaateen wadanka iyo nationality-ga oo u dhashana ay tahay wadanka UK ama British citizen inuu yahay marka wixiisa oo dhan iyo macluumaadka oo dhanna waxay yaalaan halkaas ayay yaalaan magacii iyo registration numberkiina waa kuwa halkaa ku qoran marka arrinka xagga sharci ahaanta company-gani waa company sharciyeysan oo legal ah waqti kooban buu jiraa oo aan badnayn marka waqtigaas kooban ee uu jiro mararka qaybtood waxaa jira dhalinyarada aad waxay u isticmaalaan applicationno ay fiirinayna scam detector inuu yahay ama wax saas oo kale ah uu soo qabanayo mar walba oo company-ga da'diisu ay yar tahay rating badanna uusan haysan wuxuu soo saarayaa alarm ama alert buu ku siinaya digniin buu ku siinaya marka digniinta macnaheedu ma aha inuusan sharci ahayn waa in waqtiga uu jiray ay kooban tahay inta insha Allah ina fahanteen baa filaya aan sii socdo oo aan prestationkayga insha Allah ku sii socdo I hope inuu engineerku uu soo galay marka aad mining-ka samaysid oo programkani uu ku sameeyo mining-ka oo ay bitcoin-ti ku soo gasho waxaad samayn doontaa inaad transfer aad samaysid wixii aad ka heshid inaad transfer ku samaysan karto oo aad u dirsan karto wallet-kaaga aad ku leedahay Binance-ga ama meelaha kale aad ku leedahay alxamdulillah labadii bilood ama bishii u dambeysay dadka dhalinyarada ah ee Easy Wayland Academy iyo Sahal Software ku xiran waxaan filayaa inay aad ula socdaan Binance-ga sida loo furto iyo cryptocurrency-ga iyo address wallet-ka iyo marka arrinkaasi waa arrimo aan ka soo gudubnayo qof walibaaba wixii uu helo bitcoin wallet-kiisa isagu uu doortay buu ku xawilanayaa kadibna sidaas ayuu mataqaanaa ku sii sarrifanayaa marka taasina igama baahna inaan wax badan aan sameeyo gabagabadu waxay noqonaysaa mine your own bitcoin today diyaar ma loo yahay in maanta qof walba oo zoomkan ku jira iyo kuwa naga dhageysan doona YouTube-kaba insha Allah ta'ala in ay mine garaystaan bitcoin if you are ready insha Allah soo qor insha Allah 11 iyo wixii kalaba yes Yahya ma sha Allah barnaamijkan inaad samaysatid wax fee ah oo registration fee ah oo laga rabo ma jirto registration fee lagagama baahna maintenance fee ma jirto wax limit ahna ma jiraan oo ah limit kaasa ugu yar iyo limit kaasa ugu badan iyaduna ma jirto nin walbaba iyo awoodiisa ayuu ku galayaa qofkii raba inuu ka shaqeysto qaybtan affiliate-ka la yiraahdo wuxuu heli karaa commission ilaa gaaraya 10% ayuu heli karaa marka waxyaabaha uu ku fiican yahay daily earning-ka maalintii waxaa la qiyaasayaa ugu yaraan inta aan aragnay 7% ayay qoraan laakiin mararka qaybtood haddii mining ku fiican yahay 12% ayaa laga yaabaa inuu ku kordhiyo wixii aad samaysatay daad macnaheedu ma aha inay sidaas ay 100% noqonayso good intaas haddaan ka gudbo insha Allah waxaan u gudbi doonaa page-ka ugu dambeeya oo aan filayo inay presentation-kayga ay ugu dambeyn doonto waraahda si fiican haddii layla fahmay chat-ka hal igu soo qoray iyadana waraahdaas haddii si fiican loo fahmay insha Allah chat-ka aan qoraalkeeda ku arko waa fahmay buu yiri Suhayb ma sha Allah good
good maasha allah dhammaan way wada fahmeen dadka marka hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa insha allahu tacaala wax haddii aan soo bandhigno macnaheedu maaha waxaasi waa 100% waxaa loo baahan yahay qof walbaaba inuu fahmo inuu baaro inuu taxadar uu sameeyo marka istaambada ma aha inaan ku dhufanay okay waxa kan aan soo bandhignay waa garanti weeye 100% anaga mas'uulka cidna mas'uulkaaga ma ahan qof walibaaba isaga ayaa go'aankiisa iska leh haddaad wax gashanaysidna sidii aan hore ku talin jirnay wax yar oo aadan hadhowta u dhibaatoonaynin oo aadan dhehaynin waan ku khasaarayay oo aadan u ooyeynin ku investigate wax yar waxaana taa ka sii weyn baro oo fahan never invest weligaa iyo allaha ha maal gashan wax aadan fahmaynin haddii ay yihiin waxaan wax aadan fahmaynin ha maal gashanin waxaan filayaa in si fiican layla fahmay insha allah waxaan filayaa inay injineerka u suurta gashay inuu khadka nagala soo qayb galo maasha allah injineerku wuu ku jiraa qaybta dambe ee prestationka waxaan kusoo dhaweynayaa CEO injineer maxamed jaamac soo dhawow injineer wadhowahay CEO Sharmaarke aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar kale ma sha Allah hambali u soo qoray CEO Sharmaarke oo caawa xisada qaybtii ugu muhiimsanayd ku raaxaystay ma sha Allah u soo qora waxaan filayaa caawa oo kale jawgu waa sidee dareemaysaa caawa oo kale maxaa la dareemayaa waa another level soo ma waay kafeegiina iyo shaahiini waa isdul saaran فح ماذا نفرن كومنتيجنا نجده ويا برنامج كان سوي شرماك في عام بوشر راح يهرب في عنه وكبحيي وحسب الدين له قرما أيون السوق قال وسؤال سوي الدين سيد حان كلا كلنا إلا حد يرتو وسؤال كلام مسكح هذا كشرته حان كلام مسكح هذا كشره حان كلام مسكح هذا كشره إلى وذاك شاطي وسوقر أنت عن قيمة البرنامج أن كله أنت عن جود الجليد مسكح هذا محاك صدعية وإذا لو ذاك دونا أنا إن شاء الله برنامج كه أوكي قيمة عن كله هاي براتيكال بيوبنادون إن شاء الله براتيكال بيوبنادون إن شاء الله برنامج كان هرتا وركيسو وحاو السوق جاري أنا محمد جماعة معلومة أنكار screen shot ka aan ka qaaday markii leela soo wadaagay ayaan idin tusayaa sidoo kale waxaan rabaa leaderkii barnaamijka isoo gaarsiiyay inaad ducada iyo ma sha Allah iyo hambal tiraada magaciisa halkaas ku qoray indhaha ugu hadday fiqan yihiin leaderkaas iyo shaqalka telefonkiisu iigu soo fikraysan yahay halkaas dad arkaysid soo qor leader Aadan Ahmed oo ku sugan wadanka Faransiiska ma sha Allah hambaliyo soo qoro leaderkaas ay la wadaagay oo kamid ah leaderada Easy Way Lane Academy waan idin sheegay marar badan cilmi baaris badan ayaa jirta leaderska iyo macallimiinta iyo ardayduba waa fagax weeyaan dhinaca online ka xoog baa diirad u saaran tahay waan sheegay barnaamijyo badan baa miiska saaran qodobo badan aan soo gudbin baa jira oo aan kor u hayno kamarkaan isleenahay waxbaad ka oran karaysaan u baan soo qaadanaa Easy Way iskaashato واي ليدر آدم أحمد وحب برامج كله سوى ذاك مال نمدي ثلاثة أيوة سوى ذاك إمساك كسوري 3 4 5 يتشمع ما أنت واتشمع وام أفر 10 رئيس السجن وحن في ليه هدول حسيت كتير كلمات بنسين دوناية مال نمدي سنين تأيه ورك برنامج كانوا هلا سنين تمركوا هلنا والزوال في حير إنجنير بالبحر كان ميسك إنه صار هذه يسوي شرماك بحر كان ميسك هلا صار يسوي دات تايم سنين account buu ka furtay marka link wila wadaagay la sawirada isoo diray marka maxaan ku bilaabay waxaan filayaa codka inaad u jeedaan soo su'aalihii ma taqaanay baan ku qabtay dabada u qabtay codkaas ku soo jawaabay isla arbacadii aniga codka u diray dabeedna kama nasan anagoo barnaamijkii habeen hore sharaxayna ku jirnay ayaan kana baaritaankiisa aan wadnay habeennimadii xalay ayaan anigu account ugu horeeyay ka furay account kaara way tusi doonaa insha Allah iyo waxaan kala kulmay waaya taa intaan kaga tago waxyaalaha kale muhiimka waxa weeyaan hadda sawirkan waxaan ka qaaday insight-ka keeping computer-kii ayaan dhigay insight oo arki doona insha Allah meeshay tahay jawigu markaan sawirka hadda qaaday mar dhowto zoom markaan soo galay baan qaaday macaamiisha barnaamijkan iska diiwaan gelisay almost
iisoo qor waa imisa 2 milyan ayaa kor u dhaafaya barnaamijkan inta uu jirana waa imisa maalmood ama imisa bilood baan leeyahay yaa la socda xisadda soo sharmaaka bilowgeedii waa muddo yar Soomaha 2 milyan people baa iska diiwaan geliyay saa darteed dunidu online bay hadeer u dhaqaaqday treenka online ka marka ha ka dhicin suunkaaga xidho diyaaraddu waa kacaysaa online baa loo jeestay dunidu oo dhan baa diyaaradda ku haysa saa darteed intaas ayaa iska diiwaan geliyay barnaamijkan bitcoin mining ayuu sameeyaa almost 483 bitcoin ayuu sameeyay sida ka muuqata reportkooda insight-ka xogta hadeer aan hayno tani waa hardware mashiinkiisu u shaqeeyay waxaan waa mashiinka powerkiisa almost 297 bitcoin waa lagala baxay oo withdraw ayaa dhacay maintenance-guna waa 47 waxaan filayaa markii uu bilaabayay leader Aadan Axmed halkaas waxay ahayd 42 aan filayaa sida xogta gala wadaay laakiin hadda caawan qaaday waa 47 qofkii caawis diiwaan galay bari 48 buu arki doonaa san rajaynayo halkan aan jooga waa wixii lacag lagala baxay oo qofkii uu lacag kala baxay weeyaan qofkii userkiisa iyo qoran iyo xilligu lacagta la baxay informationaas arkaysan gudaha website-ka ayaynu ugu tagi doonaa haddii ilaahay intaas haddii caddahay 11 insha Allah si xogta screenshot-da aan qaaday weeyaan 11 igu caaw meesha aan ka ogaadana waxa keen marka website-kooda la galo insight-ka ayaan ka ogaanaysaa oo aad xogtan aan hadda sharaxayo aad ka daawanaysaa halkaas sarana BTC ayaad ka dhigan doontaa marna USDT ba USD dollar laga marna BTC la dhigtaa waad garanaysaa waa bitcoin iyo dollar Mareykanka maxaan kaloo aan kula wadaagay screenshot aan hayaa habeennimadii xalay waxaan filayaa 8 fiidnimo inay ahayd qiyaastii ayaan account-kan anu aan furay oo tijaabiyay adoo lacag $300 gaaraysa ayaa soo wareejiyay oo bitcoin waxaan leeyahay Binance-gayga ayaan ka soo qaaday oo waxaan filayaa qof walba Binance account ayuu leeyahay Binance-gaaga lacagta kugu jirta ee aad rabtid halkan ku soo shubatid marka hore Binance-gaaga lacagta dhex taala waxaad u bedelaysaa bitcoin baad u bedelaysaa marka bitcoin u bedelatidna website-kan ayaad imaan wallet address-kaaga ayaad copy garanaysaa dabadna Binance-gaaga oo bitcoin lacagta ku tahay tagaysaa withdraw baad ku dhufan halkaas aad lacagta ka soo saaraysaa waxaan filayaa maanta Binance iyo Royal Q in si fiican loo garanayo lacagtan soo wareejisay $300 meelahaas ay ahayd commission far badan ayaa hawada ku go'aya wada ka saalan haddaan helno ogaan doonaa insha Allah adoo xaasil ahaan akoonka waxa soo gaadhay $273 ayaa soo gaadhay qiyaastii sawirka marka screenshot ka seel hadan ka bisha xalay sawirkan mar dhawata ayaan qaaday laakiin date lacagta investment ku soo ka bisha yahay oo xalay ay ahayd laakiin sawirkan mar dhawata ayaan qaaday akoonka marka cost-ga lacagta marka ku jirtay waxaan filayaa intaan zoomka baarihan gelina ayaan qaaday $295 ayaa balance u imariyay haas faa'iido oo akoonkaas lagu daray wal ii kala jar xisaabta ardaydu waa fagax waxayna waa itus oo itaabsi muxuu faa'iido ku daray $273 ayaa investment ahaan akoonka yimi si xaasil akoonka ugu yimi waxaana hadeer ku jira 295 almost kala go marka maxaa ku soo baxay saacid cismaan ma sha Allah soo qora waa si aan filay qiyaasta waa $220 meelahaas waa lag buu ku daray waqtiguna waxaan filayaa $220 ku daray waa imisa waa 24 saac boqolkiiba imisa ayuu ku daray ii sheeg dabadu boqolkiiba imisa ayuu ku daray ka soo qaad akoonka boqolkiiba imisa dollar han waa $220 waqtigu afraad waa hal maalin halka maalin imisa ku daray calculator u qaado waayahay calculator ma qaadanayo u qaado calculator insha Allah xisad markay naato dib aad ka sheegi doontaa insha Allah waayahay marka $278 wuxuu ku daray almost $220 waa waxa aynu ilaa hadarto ku aragno wixii ka soo baxay arki doonaa insha Allah waqtigu wuxuu nagu soo okay account-ka laftigiisa ayaan idingeynaya insha Allah account-ka laftigiisa ayaan idingeynaya account-ka dabcan waa kan waa furan yahay halkaas USDT bay dooran marna bitcoin baa ka dhigan karaa dashboard-ka laftiisa ku tusaya account-ka markuu ka yahay hadeer waa inta xisaabta ku jira wuxuu ku daray $1 oo kale waa $320 halkan ayaad kala soconaysaa dashboard-kaaga ayaad kala soconaysaa halkan waa dashboard-kii dashboard-kaaga waxaad kala soconaysaa mashiinkan shaqeynayay waxa uu ku daro account-kaaga halkaas kala soconaysaa halkan wuxuu igu siinayaa per hour halkii saac muxuu ku dari karayaa lacagta ku jirta muxuu ku dari karaa inta ku daraya maalinkii muxuu ku dari karayaa $220 haddii uu $220 ku daray 11c oo aad la socoto ku raaxaysanaysid waxaan waa saadaal qaybtan hoose maalinkii daily profit wuxuu ku dari karaa $220 baa ma haynaa mise ma hayno arki doonaa weekii wuxuu ku daraa bay leeyihiin $155 waxaan ogaan doonaa 1 week kadib haddii la haydmo
waxa akoonkan uu ku daray inuu inta ku darin kala ogaan doonaa bishiina wuxuu ku dari doonaa buu leeyahay $665 buu ku dari doonaa mar kale 33C hadda ila socotid taasi waa warka barnaamijkan weeyaan haddii aad leadernimo xiiseynaysid markaad akoonka furatid linkigaagan halkan yaala ayaad copy garayn oo aad u diri doontaa qof kasta oo arjun iska diiwaan geliyo commission ayaana laga helaa leadernimada laakiin waxay ka doonaysaa hawshaasi inaad qofka aad caawin karaysa si joogto ah ma commission ma iska raama qofkii su'aalaha ku weydiin karayo waa inaad dulqaad u leedahay oo aad ka jawaabi karaysaa intaas ayaan kaga tagayaa meesha aan ka soo qaaday excelkayga lacagta igu jirtay ilaa halkan aan ku qortay markii hore xisadda markaan intaan soo gelin $233 depositkayga ay ahayd saacaddii aan deposit gareeyay iyo maalintii waan qortay si aan ula socdo akoonka dhaqdhaqaaqiisa ku soo baratay casharadii forex-ka markaad baranaysay mawduuc ahaa war wax kastoo ku soo mara qor daily journal soo ma jirin war qor markaa waxaad ogaanaysaa ma horaad u socotaa ma halkaaga baa taagantahay mise dib baad u socotaa haddii kale ma socon karo marka anigu hal excelkan ku diyaar ku qoray deposit $233 baa halkan soo gaadhay wuxuu ku daray profit $220 intaan markii dhowta arkinay aan sawir ka qaaday xisadda ka hor bay ahayd daqiiqada ka hor lacagtan deposit gormaan sameeyay 23 bisha 20 saacadda markay 8 fiidnimo waa xal fiidadkii ayaan ku shubay xogta marka halkaas kiibin ku tahay insha Allah wixii dambe ka soo kordhay halkaas ku qori doon insha Allah marka xaggee bay hadda ku qoran tahay marka total 290 baa ku jirta xaggaan ka eegaya in 290 ku jirta akoonkan isla kii akoonkan ku soo noqonaya halkan ay ku qoran tahay upgrade ayaan click siinaya upgrade markaan ku dhufto waa meesha qofku haddii uu markuu rabo inuu lacag ku soo shubto wuxuu iska hubinayaa buy via BTC inuu dooran tahay linkigan ayuu copy garaysan qofku waa wallet addresskiisa barnaamijkan companygan Jane Main markuu linkiga copy garaystana xaguu la aadaya soo lacag ku soo shubay yaa soo qori kara chat ku soo qori kara la socdo linkiga marka la copy garayo xagee la aadaya si lacagta loogu soo shubto thank you Uthman Ata ardayda Fagax Sucayb Ali Isaaq Dirir Maxamed Mooge waxaan rabaa inaysan igu soo su'aalahaas igu soo noqon qofka husano link aad qaadan Binance ay la tag withdraw iyadoo lacagta BTC ku tahay shab ku soo sii insha Allah wax yar daqiiqad qaadanaysaa markay ku soo dhacdo marka xaggan ka arkaya lacagtii waxaan ka arkayaa halkan aan joogaan ka arkayaa oo ah upgrade baan joogaa marka upgrade rufto halkan aan hoos u soo soconaya hoos markaan u soo socdo lacagtii soo gashay ayaa arki doontaa hadda lacagtii wataas waatan suuq ku jirta waliba waxa ku darsamay faa'iidadii 294 ay simars halkan aan kala soconayaa dhaqdhaqaaqayga intaas hadday caddahay 77 insha Allah mar raba inaan isku soo noqono waxaan rabaa leader walba iyo arday walba inuu flow shaqo tago wahagaag maxaan kaloo raacinayaa haddaba halkan waxaa ku jira transfer wuxuu sheegayaa waa markaan rabo hadda lacagteedii 23 la faa'iiday isla hadda waan la bixi karayaa withdraw waan samayn karaa 23 la faa'iiday halkan ayaan waxaan gelinayaa oo kaliya wallet addresskayga Binance gelinayaa dabadna maxaan oranayaa send so clear ma leader aadan oo kale isagu waa la baxay tijaabada intuu hayay maalmihi ku waxbuu la baxay laakiin anu weli lama bixin xalay baan ku shubay waan eegayaa waa eegi doonaa xalka inaan kala cararno wixii inaan u deysano waqtiyada dambe waqtiga sheegi doonaa inahaas intaas ayaan ka tagayaa aan kaga tagayaa waya halkan setting haddaan aadayo haddaan ku dhufto waxaan u tagi doonaa email addresskayga iyo qofka meesha password ka duro iska bedelo iyo arki doonaa iyo hadduu bitcoin address meesha gashan lahaa waa setting laga maamulay meesha maxaan kale oo dul istaagayaa waxaan dul istaagayaa insight hadda aan ku tusay sawirkan ka qaatay markii dhawto sawirka aan qaaday in sumariyay markaan mariyay aan eego wuxuu mariyay 2 million iyo 422 sama hadda muxuu marayaa 42 buu mariyay markaan sawirkaas la caawayay hadda rimsu marayaa imisa qof baa ku biiray ii sheeg 42 buu ahaa xisadda markaan soo gelinay daqiiqada ka hor إسماعيل عبد القادر سؤال شيء ودي سؤال كتاب $700 ولا $100 مرة من $200 مالها العقار سامك شوي $200 يقدر أفر لا تنسى أو هالمالين إسماعيل وركز عادي هو عادي يسوق واي almost محو قدري سديت تكون أوقف باكو بيري عاو هذا الزدوان وقان دون تاهبين دم بوحة والنقضة واي حوار أيك سعودة ضدك أردن بوحي جعليين هوش هذا وضوء كم مركب وحنا نلبح الدونا هوش هذا وضوء hawshaada wado yaa tirada ila socda tirada igu daraya 3 Suhayb Ali Isaaq Maxamed Mooge Xudayfi hawshaada wado 3 ay noo baxay kan wax shaqo aad qabanaysaa ma jirto lacag ku soo shub waa daawanaysaa oo kaliya waya wixii hadda aan sharaxay waa kuwaas markaa wataas
هل هذا وحنا وقلب BTC markaad ku arkaysid halkaas BTC oran dabadna wuxuu ku sheegay 480 la shaqeeyay lacagtii ay BTC-yada ay la baxeen halkan qofka soo wax la baxayo tomato daawansa taas waa taas waxa kale oo aad la isku weydiiyaa qofka wuxuu qoranaya haddaan macallin 500 ku shubto maxaan ka faa'iideeyaa pricing kaas aad ku dhufanaysaa price kaas ku dhufanaysaa nimankan odayaasha oo banaan si fudeeyay price ka markaa ku dhufatay waxaad ogaan karaysaa qiyaas ahaan maaha actual maaha actual iyo estimate soo la kala garan maayo qiyaas uu ka badan karaa uu ka yaraan karaa halkan hadaa marka BTC ay ka tahay waxaan leeyahay waxaad laga dhigtaa USD markaan ka dhigo wuxuu siinayaa halka USD aan raado ka soo qaad halkeen aan ku qorto $100 oo kale for example $100 haddaan raado maxaan ka faa'iidi karayaa qiyaas ahaan waxaan hash rate kan iyo ma geli karayo hadda kuwa sharaxay waayo waxaan ka baqayaa inaad ku noqotid xilada ma sharax doona insha Allah waxaan isla fahmi karnaa ma ku sharaxaya per hour $0.31 ayuu ku darayaa haddii qofku uu $100 gashto per day maalintii wuxuu ku dari karayaa $7.41 buu ku dari karayaa waa boqolkiiba 7 qiyaasi buu ku dari karayaa per week wuxuu ku dari karayaa $51.86 per month wuxuu ku dari karayaa $222 buu ku dari karayaa oo capitalka wuxuu noqon doonaa $330 haddaan tusaale kale ku siiyo aan iraado lacagtaasaan bedelayaa $100 ka soo qaado waxaan ku gelayaa $100 baan ku bilaabayaa maxaan ka rajayn karayaa $100 wuxuu ii soo qoray inta maysaad $3 buu saacadii shaqeynaya bishiikan ku darayaa maalinkiina $24 buu ku darayaa dollar weekina wuxuu ku dari karayaa $519 bishiina wuxuu ku darayaa $222 ayuu ku dari karayaa marka waa uu laba jibaare double waliba boqolkiiba 200 buu ku daray bermanta ku daray aqaar hadda madaxmada isugu tuuray joog xisada ma dhamayn madaxmada isugu tuuray xisada ka bixin suunka ka bixin aga dhigo fadhiiso wali ma fadhidaa soo kacday ma fadhidaa soo kacday arba kacay xisada dhamaanba ha fadhi xisada ma dhamaysan ha kicin please waaye maxamed jaamac sheegay boqolkiiba 200 adeer waxa ayaan ka maqlin joog ilaahay khayr ku siiyo joog intaasaan kaga tagay marka tan waa qiyaas iyo estimate qof walbaana uu qiyaasi karaya waa hagaag insight waan sharaxay abado ask iyo xogtana waxa sharaxay soo sharmaaka isaan u deenaya mawduucaas waxa weeye caawa barnaamijkan soo qadimo keenay aan soo qadino waxa keenay barnaamijkan wuxuu ku siinayaa aan rabaa inaynu tijaabino qofowna lacag ha ku shubin ilaa ay tijaabadiisa dhamayno waayo xalayban anu akoonka furay intaas ku daray la bixistiisaan ogaanaynaa lacagtu markii badan ogaanaa in fuuda la bixistiisu daraasaadka si wadaynaa horta bal 30 maalmood caawa ka bilaabanaya qofowna lacag ha iska gelin qodobkaas wan isoo hadaad fahamtay 30 maalmood caawa ka bilaabanaya qofowna lacag ha gelin ma sheegin qof ilaahay wax siiyay wax yar oo sida shaaha ka $100 uu ku eegi karaa qof day wax haysta soo mid qof jeebkiisa qoyan yahay $100 oo kale uu ku eegi karaya laakiin qof kaliya $100 haysta ama $200 haysta ha ku eegin hana ku nasiibin hana ku tijaabin aan soo tijaabino macallimiinta ha wada galaan leadersku ha galaan qofkaas ilaahay wax siiyay ha soo galo aan soo aragno waxan meesha aan ku aragnay la inoo sheegay ma runba mise waa been warkaas macallin samacada Usmaan oo ma dheereen Usmaan Ashraf ma dheereen waa 30 maalmood kaliya aynu 30 maalmood kaliya siino ya umusha imisa la sugaa soo 40 maalmood ma 30 kaas kaliya aynu sugno inta kaliya sugo warku soo baxay hortin imaanaya waxa inoo sheegay hortin imaanaysa waayo chance baan ku hayaa daba registrationka horta haddaad inaad diiwaan gelisid yaa la xiriirsaa iisi weylo ma isnaqanaa suma haddaad taawada diiwaan gelisid yaa la xiriirsaa oo linkigiisa aad qaadanaysaa ما شاء الله ليدر كاغا قف والبا او سونكم كجرا وحولي ليدر ام ابلي مولي حتى هذا اسوي لين ارضك اهين waxa jira qof ku sharfay oo linkigan kugu soo diray oo waqti ku galiyay oo ku yiri xisadan soo gal ma jira mise ma jiro jawaabtiisi good waa jira soma qofkaas ayaa xaq u leh oo aad ku maamusaysaa linkigiisa inaad qaadatid ama qofkaas shaha ka cabo ama yuusan ka cabin ku maamus ku sharaf linkigiisa inaad tiraahdo linkigaasi hadiise uu jiro qof hadda YouTube naga daawanaya xisadan oo aan liidarada kala garanayn qofkaasi wuxuu aadi doonaa
page-keena Facebook-ga ayaa linkiga soo dhigay halkaas oo aadi doonaa marka ugu horeysa waxaan codsanayaa page-ka Facebook-ga asxaabtaan weli like u saarin inay galaan oo like ay saaraan page-ka la kala kiciyo oo share lagu qabto bal qof walba riix qof walba page-ka riix like ku qabo insha Allah YouTube-kana like iyo share iyo comment waxa kala baxay insha Allah ku taageer intaas kor markaan marka u dhaqaaqo halkaas ayuu wuxuu iska yeelaa linkigu wakaas hawshaada wado number 3 1 hour ka hor baan soo gelinay hawshaada number 3 wakaas linkigaas riix oo iska diiwaan geli wax documenti oo kaaga baahan ma jirto haddana hadda is diiwaan gelinayo oo waliba fursadda kale aan rabo inaan ku dhex raaciyo intaan microphone-ka leader aadan aan ku wareejiyo aan linkiga hadda riixo aan kan hore sign out yiraahdo aan ku jiray is diiwaan gelinta maxaa laga baahan yahay wax allaale wax laga mijo aad buu fududiyaa waxaan samaynaysaa maxay linkiga u badriixi adoo markaa haddaa leader leedahay applicant leaderkaaga linkiga u doonaya markaa linkiga riixdina form baa ka hor imaan doona formkaas ay buuxinaysaa user password buu ku siinaya hore dalab ka horeysa wixii aan ku tusayay waad arki doontaa insha Allah aad buu fudud yahay wax documentiyana bahalkan kaama rabo oo documentigaagu da Binance uu yaala lacagta Binance laga soo qaadaya Binance laga qaado darteed kan documentigaaga ma baahna waaya intaas haday la fahanteen mar kale 111 insha Allah si haddaba waxaad isweydiin la macallin maxaan linkiga iska diiwaan gelinayaa haddaad batiri bil aynu siino fursad kale aan kuu sheegaya inaan caadi ahayn horta linkiga marka soo riixday waxaad ku dhufanaysaa halkan ku qorantay start up symbol ama sign up kaas kadibna formkaaga un baad galgashan magacaaga iyo emailkaaga ugu muhiimsan xogtaada un baad galgashanaysaa insha Allah intaas aan kaga tagay intaas aan kaga tagay insha Allah maxaa isweydiin lahaa hadaba waxaa isweydiin leh waliba barnaamijkan uu cajiib u yahay qof kasta oo caawa isdiiwaan geliya for example ama wiil isdiiwaan geliya waxay siinayaan lacag yar oo aan badnayn sanaati bay siinayaan halaga sanaatidaas maanta inay ku noqoto 0.35 $0.35 hadii lagu siiyo xalayna tiraad oo macallin 35 maxay tiraysaa $35 ka halka doorka iyo xaq yar way kugu shaqeynayaan mashiinkana kugu shaqeynayaan every day sanaati buu ku daraya every day sanaati buu ku daraya marka qof walba markuu hadda baalkaas samaysto baaritaankiisu iska samaysanaya sanaatidaasna uu koraysaa 30 maalmood kadib waxaan ogaanaynaa sanaatida kugu korodhay waxaan ku qiyaasayaa inay kugu kordhi karayso $12 lacag gaadhis dhalinyar badan waxaa jirta aanba awoodin $12 soma kuwa badan baa u ciishan account-na furan karla waxbarashada iska bixin karla kuwaas caawa chance bay haystaan haddii bishan $12 free aad heshid bisha dambana oo kugu sii shaqeeyo mashiinkii double kale ku noqdo waxa laga yaabaa $30 $4 inay ku noqoto saa inaad ku noqotid qof haysta ayaa noqon kara inaad noqoto ay macquula haddaad fahamtay mar kale 996 marka sanaatida caawa laga faa'iideysto qof walba ay leaderkiisa la xidho weekend haysdiiwaan geliyo tijaabada in wada socon hadda way soo kordhana zoomka soo socda oo isha ku hay habeen ka soo zoom jiro iska soo gal insha Allah intaas aan kaga baxaya waxa la weydiinaya update kale nasi oo ku saabsan baa la soo qoriyay microphone ama aan ku soo noqdo waxaan u yeerayaa leader Aadan Axmed haduu joogo xisada ku jiro leader Aadan haduu jiro insha Allah soo dhow maxaad kala kulantay barnaamijka mar kale leader Aadan si fiican u soo dhaweeya ma sha Allah u soo qora magaciisa soo qora insha Allah leader Aadan waxa gaaga oo ku soo noqon doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي السلام يا دمان بهوينتي سويل أكاديمي أرضيدا ليدرسكا لبدن السي او معلمينتا يا أصحابنا نيكوا عدكي قرت هدي لما غليو نمبر 1 إن شاء الله يسوى فتاه ما شاء الله سقروح بدن انتانا هرت برنامج كان أنا قلت لك اللي يرك لا يسوى قد بيسي أنا مركز سالوني ودي باشن idinka oo dhanka ay akademiyadiina hawsha ku sii ballaariya ayaa qurux badan oo bulshadiina la sii wadaaga si fiican ayaa qurux badan sidaas ayaana markaa ula wadaagay mataqaanaa labadana CEO gaar ahaan injineer Maxamed Jaamac kadib anigu muddadii aan ku dhex jiray arday markaa su'aal soo qoraya wax khasaare ah ma leeyahay muddadaan ku dhex jiray komishanada marka lacagta la kala diraya ay ka goosanayaan maahaane ma arag $1 iyagoo mataqaanaa xitaa daily estimator-ka ay ku qoreen meesha iyagoo kor u dhaaf mooyaane mataqaanaa wax hoos u dhaca kuma sameynayaan marnaba marka sidaan ognahay qoryahan loo yaqaano miningkuna uu ka duwayay mataqaanaa systemaadka kale oo dhan oo isagu waa
soo saarista iyo generating mataqaanaa bitcoin-ka marka fursadahaasina kambaniyada badanaa bixiya waa markay cusub yihiin ay aad u wanaagsan laga faa'iidaysto marka dambe way qaaligaroobaan iyaga laftirkooda cirka isku shareera waxay kula talinaya markaa mataqaanaa horta inta baadhistu socotana suga hadhowtana maxaa yahay tolay ka faa'iidaysta insha allah fursadihiina qofkii ka faa'iidaysan karayona ka faa'iidayso intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa waxaan dib ugu celinayaa mikrofoonka CEO injineer maxamed jaamac aad iyo aad baa umahadsan tahay mar kale maasha allah dhaha dhiirigelin u sameeya waa jeclahay liidarka macalinka ardayga saaxiibka baadhida sameeya ee wax raadiya aad baan u jeclahay mikrofoonka waxaan leeyahay waa inay furnaadaan oo aynu waxa weeye dunidii teknolojiyadii online-ka waa inaan si fiican faa'iidaysanaa marka aynu wax barano ayay inoo fududaanaysaa wax walba inaynu ka faa'iidaysan karno waa hagaag waxaan raacinayaa sidaad ogtihiin barnaamijyadii u dambeeyay aan sharaxnay waxaa ka mid ah barnaamijka la yidhaahdo IBC abdii hadda ka bixiyo akoonkii aynu ku bilownay lacagtii ay soo qori karayo ila socday akoonka xitaa wax lacag wala kumaanaan inta tijaabadu ay dhammaanayso laftigiisa waxaan rabaa inaan update-ka la soconno akoonkii wada weeyay imise casho ayuu shaqaynayay waad ila socotay maasha allah waa maalmo kooban dhowr maalmood wiig xitaa ma dhamaan wiig xitaa ma dhamaan ayuu shaqaynayay markaa 150 ayuu ku daray maasha allah dhaha akoonkan iyo akoonada kale ee furanba allaha barakeeyo dhaha ducada raaciyo insha allah ilaahay noo barakeeyo horta baalkaasi halkaasuu maraya waxaa jira markaa barnaamij qiimo dhimis ah oo aan jecelnahay in ardayda iyo qof walba uu ka faa'iidaysto qiimadaasi qolalka waan soo dhinaa waxaa dhiman oo keliya maranaya hadda ka 7 maalmood baa qiimo dhimis marka qofka akoonka furanaya 7 dayskaas qiimo dhimisaas ha ka faa'iidaysto tijaabooyinka aan wadnana isaguna saaha nagala qayb qaato insha allah fursadaas laga faa'iidaysto insha allah barnaamijyada kale Royal Ugis fiican buu shaqeynayaa si fiican buu shaqeynayaa barnaamijka isaga la ilaa isagana wax la bixistii way shaqeynayaan ilaa maan hayno laakiin mar walba indhahaynu waa free warkaasi macna mar walba indhahaynu waa free inahaasaan kusoo koobayaa markaas baan ku celin doonaa insha allah guuleysta ballankeena waa waxbarto shaqeysta waraysa warakaaro aniga way ka dhantahay doctor hadda ku jirto insha allah mikrofoonka ما شاء الله آد بي أمهات سيهين CEO إنجنير محمد جامع CEO شرماكة عبد الرزاق ورمتي عاوة إنوصو بندقة فرصة عالمي هذا مانتين عن كودة فايدي سنكرنو هالمر ما شاء الله إمهات السندين إنك جات كهلو وصوقر CEO يدا ورمتي إنت بدن وقت قودو كبحي السيري ولا راه صوماليات دالين يرادا مستقبل قودو بس يدرسي لهايين عاوة فرصة عالمي أينا لو ذاقي haddii barnaamijyadii hore aad uga hartay kharash la'aan caawa waxaa lagu sheegay in fursad ay jirto oo adiga oon wax qarash ah bixin abaalmarin aad helaysid halkaan abaalmarintaada ay ku sii shaqayn doonto maasha allah jaadka maasha allahda ayaa isqabsatay aad baad umahadsantihiin maamada tiimka ayaan soo dhaweynaya maama fahmo maama soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله الله إذا حفظيه دمانتين أستاذ محمد جامع سهل iyo maxaa la dhahaa أستاذ شرماكة عبد الرزاق labadii CEO iyo Dr. Hanad Cilmi oo inoo xidhiidhinayay barnaamijka Soomaalidu waxay tiraahdaa anigu de kulley waxaan jecelahay in hadalkayga araar ku daro صدر مقدار سؤال كدن يعني وحرت هذا يا لا سؤال بملح مركا أكاديمية دنا الله بركايو دتك تشوفي قلينا هذي ليدرسيين هذي معلميين هذي مدحديين وحي عصب أمال أركين يدني كجر تسوق قد بنايا إلهي سبحانه وتعالى محال إذا هذا هكا رالي نقدر دمانتود قفوا البوي نقام دنا ساسا لقدونيا إنه هرو مرسى ميو أيا لقدونيا waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa gacmo isdhaafa gacantooyo dhala yani ayaa la yiraahdaa yani markii wax la wada qabsado markii wax la soo wada arko markii wax la soo wada keeno waxa suuro galaysa ama fududaanaysa bulshadu inay horumarto
waxaan rajaynayaa sanad baa gabagaba ah sanad cusub baynu inoo dhalan doona de sanadkaa dhalanaya kii aynu dhiisha fakriga tuuri lahayn in ilaahay inagaga dhigo oo dal iyo dad iyo nafteena intaba maxay hayto dee kaga dhargi lahayn insha allah taasaan rajaynaynaa biidni illaahi raxmaan ducada ha laysku daro ha laysu duceeyo maxaa la yidhaahdaa wanaagga ha laysfaro waxyaalaha xun oo dhan ha laga tago waxyaalaha xun ee aan dantu ku jirin ha laga tago social mediaha waa one of the haddii wanaagiisa aan la isticmaalayn waa cudurrada ugu waaweynayna haysta ee problemka iyo balaayada iyo shaydaanka iyo kulli laga faafiyo laakiin inagu waxaynu u adeegsanaynaa dhankii wanaagsanaa ee horumarka lahaa ee ninkii sameeyey uu ugu talagalay inuu wax ku soo kordhiyo anfac la dunida maaha inaga Soomaalidu 90% dadka u isticmaasho tobankaas soo hadhaynu ka mid nahay ee u abaaraya waxaan ay aymkii laga lahaa in looga faa'iideysto marka aynu ku xamdino nicmooyinka ilaahay ma sha Allah tabarakallah intaasaan idinkaga tagayaa dee waka account-ka freega furta lacag niguma joogo laakiin lacag ha iskaga shubina inta ay maxaa la yidhahdaa jabaabiirtu dee kasoo midho dhalinayaan ay ka keenayaan war inta iyaga isaga eegaynaaye salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu